وحسن الخلق أخلاق ذا وناكسن أيا وحال يجري وحاوي ضلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. أخلاق ذا وناكسن مركي لقيش كيني أيا وحال وجسو لوريي إن أي تاي وجه فرفران قفك ينو وجه فرفران ليهي ومركو كلها الله يمركو كاهر يماتو يمركو كلا شكيسانيو يمركو كلا كل مبا إن وجه جيسو فرفران يهي إن أنا كدريمين مقرنسا وح نعيب وح كراهية وح مقرنسا دي مقرنسا قفكن أيا سيدان مركانا قفك وجهك مقرنسا حيران قفكاس قفك قفك وجهك فرفران وحي كل دويين دي قفكن وجهك حيران قفكن قلبي سيبا حنوم صنيا وقفك قلبي سي وحلقة يابا إني كجران أخلاق حن أما حسد با كجرا أما كراهية كجرتا أما وحبا قصة ميصيو وحي أيو مقرنسا كعريسان يهي مركانا عرضا وجهي كصب بحضي حقابي كتمي قلبي كتمي مركا وحن وجهي عرضا وجهي قفك لقاركو مقرنسا قلبي سينو وعريسان يهي مركا سيداس أي أخلاق حن أي أبدشا قلبك سيدي وجهك وبدشو قلبك وبدش سياسي قلبك وبدشا وجهك سي وبدشو أي سي لمدة أي قلبك وبدشا مركان قفك وحال الدنيا حتى هادو أخلاق حتى ربين إن قلبك يسوي راشدو وقلبك إن مقرنسا إسبدلك يا إنه حنصدو إنه كيلاشدو مركا وحال يريد ضلاقة الوجه قفكو وجه وإنه وجه فرفرنيهي ومركا هذا شيء الحمد لله رب العالمين هذا الكيس انتو نكسو قارين ووجهيسو كسو غاريا hadalkiisu intuu kusoo dhaweyn wajigiisu uu kusoo dhaweynaya sababta qofka wajigiisu haduu magarnaysa waji wanaagsan uu yahay oo furfuran oo faraxsan de magarnaysa adiga hadalka iyo sheekada iyo kulanka kusoo dhawaadaya ama hadii waji cadaysan iyo waji xiran haduu leeyahay isla markiiba waa ka didasaayo waxa salaadahay de kan maxad ka salaamsan وبدل المعروف يا معروف هنا بحسد قف وحكوسي إنا وحسيسيد قف أو حسين إنا قف أو حكوسين إنا وحسيسيد قف مقارنة معروف إيو بالومك كله إيو مقارنة قلب وحاس أولاً إنا بحسيد أو مقارنة قعنتا تكفرناتي صوبتها قعنتا فرناشيه دوا إنا وحبيسو وكف الأذى عن الناس يو دباتا آلة هاي إنا تدك كجوجسو صوبتها قف كستبا دباتو ليه قف كستبا dhibaato leeyahay laakiin dadkan caasiyada marka muqarnaysa safiih marka la tilmaamayo waxa weeye dadka awood leh ee dhiba dadka daciifka qof daciif haduu doonto waa sifatu min sifati iblis waxa weeye wuxuu ku sifaysan yahay sifooyinka iblis qayb kamid ah sababta iblis markii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri anigu muqarnaysa waan ku fogeeyay waan kulan caday ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu meeshu uu siiyay ka soo saaray ayaa wuxuu eegay ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ilaahay eegay ayaa wuxuu ogaaday de uu ogyahay ilaahay inuunan de waxba ka qaadi karin oo ilaahay inuu dhibaato gaarsiin karin ayuu ogyahay markaana wuxuu u jeestay malaa'igtiina de inuu waxba ka qaadi karin oo malaa'igtu ku xoog badan yihiin oo ka awood badan yihiin buu arkay hadhow buu wuxuu soo eegay aadam wuxuu arkay aadam inuu dhibi karo inuu ka awood weyn yahay in uu magarnaysa uu dhibaato fara badan u geysan karo hadhowtana nabi aadam buu kusoo jeestay hadhowtana wuxuu yiri ninkan duriyadiisa oo dhan magarnaysa naartan gelinaya oo duriyadiisa oo dhan magarnaysa waan dhibaya halkaas uu dhaartay nabi aadam oo wax ku sameeyay oo halkaas laga abuuray oo aanan dhibaato gaarsiisin oo wax aale wuxuu ku sameeyay jirin ayuu isaga dhaartay marka sifooyinka qofka xaasidka loo qorto way qofka xaasidka sifooyinkiisa waxa kamid ah qof aan waxba ku sameyn ayuu dalaq ka soo dhaxaya soo wuxuu doon ku sameeyaa markaana waxa weeye iblis ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo malaa'ikta markuu arkay awoodoodii uu ka soo leexday nabi aadan markuu arkay nabi aadan inuu maqaranaysa nabi ama aadan in la dhibi karo oo awoodiisu ayna ahayn ay ka hooseyso tan malaa'ikta ayaa wuxuu bilaabay inuu isagii مقارنة كو عرب بربرو يساقي إنو مقارنة ظلميو مركانا واسداس قفكو حالدونيا وكف الأذى عن الناس لباتدا إنو دتك كجوجيو إنو ديبو قفك قرابديسا إنو ديبين قفك درسكيسا إنو ديبين قفك مقارنة مسكين كايا ضعيفك إنو ديبين دتكاسو إنو ديبين
nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa la soo diray ashyaa fara badan oo waaweyn waxaa lagu soo dejiyay waxyiga sunnihii baa lagu soo dejiyay shariicadii iyo ahkaamtii baa lagu soo dejiyay waxaa kamid ah waxyaalaha lagu soo dejiyay ama loo soo diray nabiga sallallahu alayhi wasallam in uu dhameystiro akhlaaq nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bu'ithtu li utammima makarim al akhlaqi waxa la ii soo diray inaan dhameystiro akhlaaqda wanaagsan ayaa la ii soo diray markaana shayga nabiga sallallahu alayhi wasallam loo soo diray waa shay weyn oo qiimo leh oo carabtu akhlaaqda wanaagsan way yaqaaneen oo karamka way yaqaaneen oo carabtu way yaqaaneen waxyaabahaas karamka way yaqaaneen deeqsinimada way yaqaaneen geesinimada way yaqaaneen in qofka loo heliyo way yaqaaneen waxyaabahaas oo dhan way yaqaaneen laakiinse in la dhameystiro ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam loo soo diray oo waxyaalo fara badan ma ka maqnaa sida in makaranaysa baadilka inaan la cunin xaraanta in makaranaysa sheekada beenta in la iska ilaaliyo qowl sur in la iska ilaaliyo makaranaysa qaraabada in la xiriiriyo oo qaraabada iyagu way goyn jireen in makaranaysa dumarka xaqooda in la cuno macnaha waxyaabahaas oo dhan makaranaysa waa ka maqnaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yimi intii ay yaqaaneen inuu u toosiyo oo u wanaajiyo si sharciyeysan intii ayna aqoonna inuu u kordhiyo oo u dhameystiro markaana shaygaas waa shay aad iyo aad u weyn marka hadii aad ogaatay in makaarimul akhlaaq nabiga sallallahu alayhi wasallam la soo diray waxaad ogaatay inay makaarimul akhlaaq ay weyn tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabta uu ku dadaali jiray inuu baro akhlaaqda wanaagsan in magaranaysa dadaalkoodu uu noqdo akhlaaq dhameystiran oo akhlaaqda wanaagsan sideedaba waxa dhaama marka qaar qofku hadii uu akhlaaqda dhan ku sifeysan yahay akhlaaqda dhan qofku hadii ku sifeysan yahay qofkaas qalbigiisu si dhameystiran ay u raaxaysanaya munsharix sadri waa qof laabtiisu ay munsharix tahay oo magaranaysa faraxsan oo qalbi wanaagsan oo qalbigiisu raaxaysanaya laakiin qofka akhlaaqda xun magaranaysa murugooyin fara badan iyo walwal fara badan iyo raaxada qalbigiisa oo yar ayaa ka buuxda akhlaaq kasta waa inta laagtahay hadii akhlaaqda aad 100% ka hayso farxadaadu 100% way ka maqan tahay hadii akhlaaqda 80% aad ka haysto 20% farxadaadu way maqan tahay hadii akhlaaqda down aad ka tahay oo 40% aad haysato waxa ka maqan akhlaaqda waaweyn marka hadii aad maqashid qofkaasi waxa weeye waa qof dadka nacab waan maqashid qofkaasi waa qof dadka dhiba waan maqashid qofkaasi waa qof bakhila oo waxa bixin waan maqashid qofkaasi waa qof xaasida waxaas dhan hadii aad maqashid u fiirso qofkaasi noloshiisa u fiirso waxa weeye murugooyin fara badan ayuu ku dhex jiraa murugadaasna waxa weeye hal mar oo laga yaaba toddobaadkii hal mar uu wax sameeyay hal akhlaaq ku dhacay oo caadaystay oo toddobaadkii laga yaabo inay hal mar soo marto halka